su-aashan waxay dhahaysaa qof waalida soo qorayha ilmahay way yar yihiin ama gabadhayda way yar tahay ama inantayda siyaaba qof u fahmo waxayna dhahdaa haddaad dugsi geynaysid macallin barayfada ii qab waxaa laga yaabaa inanta si meesha ma oto inantaana madarasa weyn la diima laakiin ilmo kale ay raacday oo madarasay soo artay qaw garaacayo ama looga sheekeeyey oo waalidiinba way sheegaan wallahi macalinku u geyn doonaa wallahi waa loo garaaci doonaa oo ilmihii iyo waalidkii macallinkii bay cadowtoona dhex dhigaan waa lasoo waxa u yaala waa lasoo garaacay hebel waa la dilay ilmihii markii waxaa lagu abuurayaaba cabsi ama ilmo kale soo garaacaya uga sheekeynaya ama maalin buu raacayaa madarasay tegayaa asagoo cusub oo la keenay hadda baa macalinku u qaato mid kala garaacaya markaasuu leeyahay meeshan bilaaya taalla khatar marka macallinku waa inuu ka fakiro kuwa uu hore u hayay iyo kuwa loo keenay labadaba oo haddii qof cusub lagu keeno qaynuun iyo dee la kulan yahay waxbarashada oo dal raacay leeyahay qof lagu soo dhoweeyo oo aan su'aal hore looga soo boodin oo aan wax la weydiinin oo aan cashar loo dir sidii horta madrasa la qabso oo meesha arkisay wax soconayaan laakiin hadduu meel fawda yimaado oo la isku garaacaya ama bahalnimo taalo dadku ka qaada ma soo laabanayo ilmu yareen kama daran meel baa ma sheegay mid baa ilmo shanjira loo geeyey wali aan ugu kordho markaasoo laba olgu dishay wali way soo iday ninka si xaw iday subax waxa lagu yeeshay hoob maxaa gabadha u garaacay shalay soo dhaweyn marka saasa sida daradeed waxa soo dhaweyn ma aha sharaf ma aha anima talaaha waxaan bixin lahaa inantan macallin barayfada loo qabto waa runtii anoo ma waa garaan akhtar macallin Soomaalida aniga farq aan ma ka tagtay badankooda dilka ma la ogol yahay ma ina garaacmaya Soomaalida ma ogola macallin kale hataa Soomaali kaliya ma aha meel badan ka jirta anoo dadka u dilka yar baa man nahay hadaad Bangladesh tagtido Pakistan tagtido Nigeria nafta laga jira waqti sida daradeed waxbarashada loo garaaci karaa waa waxbarashada maya laakiin tarbiya laga hadlayo sida daradeed meel badan ku faahfaahiyo kaga hadlay dawaabida iyo qaynuunka u degsan qofkii raacaya oo ay kow ka tahay dil aan barar sameeyay oo laba ka tahay wuxuu inuu daal ku yimid sabab leeyahay oo qalad u galay lagu dilayo saddex ay tahay qof mas'uul ah waxaan fulinayo qof loo dhigtay uu yahay waalidkii ama macallinkii waxyaalo badan saas jira laakiin anuu ma sameynaa macallin Soomaaliyeed nahay maya dilkana waa bahalnimo anaga sida daradeed waxa uu soo dhacay nin baa wuxuu biyay sheekh oo kana kafeecdo waan waashaamay si wuxuu kafeeg waa xalaal laga xaraam tahay waxa uu waa tabiil mada huwa aan xaraam tahay sida daradeed maadaama aan ilaalinaynin qaynuunkii iyo wadada ilmaha lagu tarbiyeynay dilka Soomaalida xaraamka iyo qof kasto oo dariiqas qaadaya oo ilmi garaacay ilmaha dil ku qayrin soo dhaweyn waxbarashadana waa ka mamnuuc dil iyo cay iyo deel ku liiditaan iyo sida daradeed waxaan ku talinayaa hal loo keeno macallimaad gabar oo barayfada loo geeyo insha Allah ayada kana amaan badan raga ka dilya una fiican ka cabsanaynin marka door macallimada barayfada insha Allah taala taasaan rajeynaya inaad ku kala badbaadaan